ruushka gobolka Kaluga tuulada Palatki kaniisadda isbeddelka rabbiga. Kaniisadda ayaa la rumaysan yahay in la dhisay dhammaadkii qarnigii tadisalaad. Ma jiro hal qalab oo kululeynta gudaha dhismaha. Ma jiraan shooladaha ama nidaamyada kale ee kuleylinta. Waxaa laga yaabaa in qalabka kuleylyaha la jabiyey oo la qaaday. Si kastaba ha ahaatee, wax raad ah oo ku saabsan hababka kuleylka ee la qorsheeyay inta lagu jiro dhismaha lama helin. Ma jiro qol gaar ah oo loogu talagalay shooladda, ma jirto meel bannaan, ma jirto dhuumaha hawada, ma jiraan qiiqa. Markii kaniisadan la dhisay, qofna ma uu doonaynin inuu kululeeyo. Ruushku wuxuu lahaa imilo diiran oo aan lahayn jilaal daran iyo dhaxan. Dabadeed cimiladu way xumaatay oo qabow bay noqotay. Waxay ahayd inaan samayno xooga kululeynta. Burjilo bira ayaa la agdhigay albaabka kaniisadda gudaha. Qalabka kululeynta ayaa ku yaal albaabka laga soo galo si ay u abuuraan daah kuleylka hawada qabow. Meeshan waxaa yaalay shoolad. Halkan waxaa daloolka qiiqa laga soo galo oo gidaarka lagu dhuftay. Tiisoo leh in si dhow loo eego. Jaranjarada ayaa ah mid kacsan, waxaad u baahan tahay inaad hoos geliso gabal leben ah. Ma aragtaa in lebenkii jabay? Lebenka waxaa lagu dahadhay dambas madow. Qiiq ayaa ka soo baxay kanaalkan. Meeshan oo dhan waa laga jabay darbiga. Si loo abuuro tuubo gidaarka kaniisadda, qayb khafiif ah ayaa laga sameeyay dhinaca qolka. Qaybtu waxay ka samaysan tahay laba midab kala duwan leh. Waxaa si cad loo ogaan karaa in lebenkan ay ka duwan yihiin lebenka gidaarka. Midabka hoobiye ayaa sidoo kale ka duwan. Hoobiyaha gidaarku waa caddaan. Halkani waa midab khafiif ah oo bunni ah. Sida amuudda oo kale ayay u daadata. Waxaa hubaal ah in qiiqa lagu dhuftay gidaarka ka dib markii kaniisadda la dhisay. Waxay noqotay qabow, waxaana ku qasbanaaday inaan qolka la qabno jilaalka ruushka. Saynisku wuxuu dadka ka qaryaa xaqiiqada qaboojinta fiiqan ee waqtiyadii la soo dhaafay. Laakiin dhismayaasha taariikhiga waxaan ku aragnaa caddaynta cimilo kale. Waxa caddaynaya in cimiladu aad isu beddeshay ka dib markii la dhisay dhismayaashan.